بسم الله الرحمن الرحيم مناسبة maanta la isugu yimid waa mid waqtigeedii ku soo aaday dalkeena wuxuu ku jira xaalado emergency ah iyo ku jira qaraxyo iyo dhibaatooyin ayaa maalin walba dhaca dalka inuu xoojiyo diyaar garowgiisa musiibooyinka noocan oo kala ah aad baa loogu baahan yahay in laga jawaabi karo markii dhibaato ballaaran ay dhacdo si degdeg ah in looga jawaabi karo waa wax waajib ah in loo diyaar garoobana ay waajib tahay nasiib darro waxa ah haddii markii wax dhacaan qofkii dhibaatada koowaad ku dhinta waa gooni laakiin qofkii keer la-aan iyo daryeel la-aan u dhinta ayaa murugo ah oo maaragtay nasiib darro ah markii wax dhacaan inaan badbaadin karno inta markaa daqiiqada koowaad naf baxday mooye inta kale inaan badbaadin karno inaan u diyaar garowno waa laga maarmaan workshopkan taas ayuu kulley hordhac u yahay shir kalena wuu jiri doonaa wasaaradda ay qorsheynayso inay qabato oo arrintaasi loogu maaragtay tashanayo in la xoojiyo maaragtay in la tababaro rapid response teams in la tababaro la qalabeeyo ambalaasyada aan haysano la mideeyo lana kordhiyo lana xoojiyo dadka meel markay wax ka dhacaan galaya ay noqdaan dad loo tababariyo u diyaarsan ay noqdaan hay-adaha amniga iyo ayagana la isku xiro oo loo fududeeyo meesha inay galaan lagana hubiyo intaysan gelin ka hor meesha amnigeeda dad yaqaano dhaawacyada siday u qaadayaan yaqaano qofka hadduu dhiig baxaya inuu dhiigga maaragtay artriga dhiigbaxa wada in uu cadaadin karo dhiigga ka joojin karo haddii qofka laga yaabo fartabraha inay wax ka gaareen yaqaano siday u qaadayaan si loo ilaaliyo in dhaawac kale uusan gaarin spinal cord waxaasoo dhan waa laga maarmaan haddii aanan la helin tiimam noocaas u tababaran heegan ah degmo walba ka jira qalabkooda ambalaasyada haysta haddaan la helin khasaaraha dhibka markuu dhaca na gaaraya waxaa ka weynaan doono midka daryeel la-aanta darteed u dhacaya ayaa ka weynaan doono marka insha allahu tacaala arrintaas ayaan rabnaa inuu wasaaradda enerjigeeda iyo awoodeeda ay soo geyso dhakhaatiirta soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyadoo kaashanayso WHO iyo maaragtay ururada caalamiga ah ee bartinariska la ah wasaaradda saaxiibada ahna wayna u garab siin doonaan arrintaas hadduu ilaah yiraahdo marka waxaan rajaynayaa maanta waa bilow waa hordhac workshopkan dhakhaatiirteena emergency ka shaqeysa iyo isbitaalada oo jooga iyo teamka WHO expertiga ah noo joogo waxaan filayaa in fikrado badan isweydaarsan doonaan wixii baahi ah oo maaragtay conclusion ay gaaraanna ay soo gudbin doonaan wasaaraddana kolley balaan oo maaragtay draft ahba arrintaas ugu degan ayadana maaragtay halkan kolley waa idinkula wadaagi doonaan qeybta departmentiga planninga waa idinkula wadaagi doonaan marka waxaan jeclahay inaan maalin walba halkaan aanan taagneen 10 sano ayaan ku jirnaa xaaladda emergency-ga ah oo qolyaha maaragtay cadowga ku ah nafta bini aadamka ay maalin walba qaraxyo geysanayeen laga soo bilaabo qaraxyadii maaragtay ka dhacay hotel shamow kuwii ka dhacay harkaha isaamaha kuwii ka dhacay maaragtay zobe 1 way iska socdaan 10 sano ka badan ay iska socdaan ilaa haddana weli uma diyaarsanin inaan maaragtay si oo effective aan ugu jawaab celino weli uma diyaarsanin marka ma sii socon karta arrintaas ka wasaarad caafimaad ahaan awoodeena oo dhan waa isugu geyn doonaa sida emergency-gaasi wax loogu bedeli lahaa dalka xaaladda uu ku jiro si wax loogu bedeli lahaa